yaan gudaha u galaynaa si aan u iibino aan u ogaano waxa socda internationalka waxa socda waxa aan samayn doonaa waxaan tegaynaa Alibaba maadaama hadda aan raadinayno waxa loo yaqaan non brand alaabaha non brandkaan raadinaynaa annagoo isticmaali doona Jungle Scout okay Alibaba aan ku jirnaa Alibaba markii aad joogto isma waalaysta sheekh Alibaba markii aad joogto waxaa leedahay and most seller product on Amazon okay or what's trending product midkaa doonta waxaa leenahay most seller product in Amazon asaa noo sheegay wixii Amazon ka socdo okay haddaad alaabtan waa trending okay haddaad alaabahan waa trending waxaa laga yaabaa inuu annaga recordkeena aqrinayo waxaan fiirinay inuu xooga saarayo okay laakiin annaga muhiimaddeena waxay tahay electronigu haddana siinaya maadaama annaga electronic ku jirno I believe wuxuu aqrinaya IP addresskeena laakiin waxay noqonaysaa inaan dib uga noqono and we do know what's trending product okay walk with me ila socdo insha Allah ta'ala you know and so waxaan leenahay what's trending man maxaa socdo oo trending ah wagaag hadda wuxuu noo soo saaray trending product waxyaabaha hadda socdo uu leeyahay you know waxaan isku dayaynaa inaan haddana vice versa u shaqeyno maadaama electric alaab uu ii soo saarayo sababtoo ah waxa uu aqrinayaa my IP address alaab marmar badan aan ka baarnaa waxyaabaha loo yaqaano Alibaba waxyaabaha socda so now it looks like inuu aqrinayo IP addresskayga marka waxay noqonaysaa waxaan ku noqonaynaa Amazon waxa aan raadinaynaa waxa socda Amazon ka socda two ways ayaa u samayn kartaa waxa haddaad rabto inaad raadiso waxyaabaha soconaya okay marka hore waxaad samaynaysaa Alibaba haddii uu ku ogaado inaad yani alaab ka raadinayso marka dambe waxa aad raadiso kusoo hordhigaya wuxuu aqrinayaa waxa loo yaqaano IP addresskaaga so waxaan samaynayana waxaan tegaynaa Amazon si aan u ogaano waxa socda ama waxa la iibinayo waxaan leenahay waxaan ku dhufanaynaa calaamadaas all ay ku qoran tahay we clicked all waxaan leenahay new release okay maxaa hadda socda what is new hadda all right markaan new release ku dhufano waxay noo ogolaanaysaa waxyaabahan ay noo soo bixisay Amazon okay waxaan samayn karnaa two ways haddaan u baahannahay xaggan wax ka soo baxsan karnaa haddaan u baahannahay wax xaggan ka soo baxo oo new release-ka ayaan gudaha u geli karnaa okay si ay taas noogu hagaagto waxa aan rabnaa inaan ii sheeg fiirino page-ka ugu horeeya oo new release-ka ah alaabahan haddaa u baahan tahay Amazon waa ku iibin kartaa iyo dropshipping waa ku samayn kartaa waxaan rabnaa inaan marka hore Alibaba ka soo raacno marka Alibaba ka soo raacno Amazon soo galno Amazon dhexdooda in lagu iibinayo inaan idin tuso maanta videogan aad buu u dheeraanayo 1 hour dib hadduu noqdo it doesn't matter waxaan rabaa muddo inaan kala maqnaano so marka sidaa la adligeed waxay ay ii sheegaan gudahan ku soconaynaa waxaan raadinaynaa alaab u eg in China laga keenay okay aysan Amazon iibinaynin alaab u eg in China laga keenay aan Amazon iibinaynin okay okay browser history maraan alaabaan raadinaa jirta Amazon okay so let's go waxaan sameynaynaa waxaan raadinaynaa maadaama alaabtan pencil waxaan fiirinayaa qofka inta view haysta viewgan ka tixraacaynaa okay maadaama waqti hadda Christmaska lagu jiro waxaa inta badan dadka iibinayaan waxyaabaha Christmaska waxaan ka cararaynaa waxyaabaha brand intooda badan ma rabno sababtoo ah brand wuxuu noo keenayaa waxaan ku noqonaynaa waxyaabihii hore aan ku noqonaynaa alaabtan 395 it looks like brand inay tahay laakiin intaa xoogaa ku soconaynaa la sii idana prepare with me daylight okay so waxaan arkaynaa daylight ninkan inuu 32 pieces iibiyey maadaama Christmaska lagu jiro alaabtana daba kacaynaa la sii meesha nageyso waqtiga Christmaska lagu jira dadka inta badan yani alaabay soo qaadanay meelahan keenaan okay waxaan rabnaa alaabtan daylight ay ku qoran tahay ninkan ma daylight magacu ku soo qoray is alaabtan uu iska keenay okay
waxaan rabnaa xaggan waxaa ku qoran daylight ninkan alaabtan wuu brand gareey he put a brand uu ka dhigay wuu soo brand gareey laakiin waxaan rabnaa inuu China ka keenay in kale inaan ogaano waxaan leenahay let strip waa ku gareynayna up control 50 oo maxaa dhacay waxaan leenahay let strip daylight 50 feet 50 feet let strip up with the remote highlight copy waagaag markaa intaa ku dhufano waxaan tegaynaa saaxiibkeen AliExpress waxaa la dhahaa aan Alibaba bartaa furan baa waxaan ku qoraynaa waxa aan soo qaadanay something aan highlight ku soo sameynay from Amazon ka soo qaadanay waxaan leenahay past mention raadi alaabtaas Alibaba wuxuu soo saari doonaa alaabo la mid ah iyo kuwa u dhow okay laakiin waxaan raadinaynaa alaabtii hadda xagga ku arkaynay alaab wax la mid ah okay iyo price-ka xagga lagu iibinayo iyo price-ka xagga lagu iibinayo waxaan rabnaa inaan helno Amazon aan ku noqonayo one time where's Amazon waxaan raadinaynaa inta feet alaabtii aan rabnay intay tahay alaabtan aan rabnay 550 feet waay okay 550 feet ayaan raadinaynaa instead of 50 feet okay 50 feet with 550 feet 50 feet iyo 500 RGB sorry 500 RGB okay 50 feet width with a waxaan leenahay 550 RGB okay you need to follow exactly haddaa wax raadinaysa procedurekan so hadda wuxuuna siinayaa anything oo 550 RGB inta wuxuu kusoo qoray 550 RGB laakiin ninkan wuxuu la leeyahay order minimum 1 meter order dadka waxaan raadinaynaa meeshan order unlimited uu yahay you know kuwa 50 ku qoranta waa supplier kale 80 pieces 550 this one macquul waay alaabtan okay ma isku egyihiin ninka xagga alaabta soo saaray sawirka sida kale u bedelay let's see ma soo dhaweynayaan waxaan ka fiirinaynaa sawirada iyo alaabta si ay ugu qorqoran yihiin kan $85 P165 and a 51 millimeter Google Home okay si tartiibaan u raadinaynaa it might take a time waqti yar inay qaadato 2020V voltage okay 2020V haddaa aragto waa Africa iyo Europe annagana ma anfacayso maadaama Maraykankaan deganahay laakiin waa weydiin karnaa supplierka waa dhigi karnaa naga bedel 2020 feet alaabtan ayaa aad iyo aad ii soo jiidatay I believe inay 10 millimeter so 10 millimeter smart ama waxaan ku dhufanaynaa ninkii dhahaya 50 feet let's see ninkaana ka bilaabaynaa maadaama asiga la siiyo touchka okay waagaag xagga waxaa noogu qoran because alaabtan weekend brand okay ninkan wuxuu leeyahay $4.06 haddii aad $4.99 ka qaadanaysid Amazonna waxaa lagu iibinayaa $9.99 automatically nama aqbashaba ma qaadan karo ninkan okay sababtan u qaadan karin waxay tahay policygeena ma qabanayo ninkan inaan annaga 460 ka siino asigana uu ii sheeg so automatically ninkan waa distributor waxaan rabnaa kanoo kale lat USB 12 voltage okay 550 kanoo kale wuu naafacaya because wuxuu u muuqdaa nin alaabtan yaqaana oo inaan lacag ka samayn karno sababta wuxuu iibinaya waa less than price-ka aan meelahan kusoo arkaynay okay so markaa aragto minimum order meter 5 meter minimum order garaysan kartaa so 1 millimeter length so waxaan dhigi karnaa waa la xiriirinaa contact supplierkan ninkan alaabihiisa soo qaadayna macluumaadyada intuu ku qoray wixii dhan aan soo qaadayna waxaan leenahay alaabaha waa inay noqdaan alaabahana inta ka qaadaynaa about this product tickets waa qaadayna u diraynaa asaa alaabahan la soo maaji garaynaya waxaan leenahay alaabahaasaan u baahannahay oo aan hadda kuu soo dirnay videoga Alibabana mar kale si fiican uga hadli doona maadaama 1 millimeter uu yahay 0.36 oo ama 0.38 uu yahay I believe ninkan inaan lacago badan ka samayn karno okay total options one color lamba power waxaasoo dhan optionna xagga ka samaynaysaa 1 millimeter aan dooranaynaa RGB ga waa imisa waa dooranaysaa RGB ga 550 ahaa you know RGB ga you have to choose 550
you see this guy option uu ku siinaa waxay ku tusinaysaa qofkan inuu yahay warshad okay so wuxuu yiri ninkan 5GB 1000 haddii aad raadinaysid 550 items uu ka wadaa sorry يعني items ku intaas leeyahay price-ka waxay noqon doontaa 1100 RGB emitted color RGB waxaan weydiinaynaa RGB-gan you know aan 550 inuu ahaado recommendation aan ku xiraynaa laakiin muhiimadda hadda maadaama aragnay oo alaabtan sida brand non brandka ah oo brand looga dhigto Amazon loogu iibiyo sida ninkan oo kale waxaa muhiim ah ana ii sheeg inaad ogaato alaabta meesha ka imaanaysa waaga waxaan hadda soo ogaanay alaabtan inaan Alibaba ka keeni karno alaabtan marka anagu Amazon ka iibsanaa dhib arag alaabtan naanka la iibinayo ma ku iibin karnaa meesha loo yaqaan eBay waay dropshipping ma ku samayn karnaa chapterka labaad aan galnaa hadda oo dropshipping ka okay waaga waa ku samayn karnaa dropshipping waxaan sameynaa highlights here waxaan leenahay 50 feet bla bla okay xaggan aan ka raadinayn alaabtii iyada ahayd xaggan waxaan nooga soo baxay waxaan rabnaa alaabtan arkaynay same sawirkeeda daylight okay xagga waxaan ku aragnaa daylight ninkan alaabtan daylight ku iibinayo in la iibinayo 1798 1470 okay 1499 waa same thing waa maaragtaa xaggana 999 looga soo qaaday $9 looga soo qaaday $10 looga soo qaaday xaggana waxaa lagu iibinayaa eBay ilaa $15 okay so ninkan xaggana waxaa ku aragtaa inuu waxba weli iibin hadduu soo qaado waa qof cusub qofkan okay kan hal xab uu iibiyey alaabtan ka iibiyey you know waqtiga waxaa lagu jiraa oo Christmaska wadanka aan joogno kana wuxuu iibiyey waa ninkana wax badan ka iibshay so waxaan samayn doonaa ana ii sheeg qaarkood alaabtan way sponsoreen waxay ka tageen sawirka inta ayuu intooda badan waa iibinaa laakiin ninkan aan nooga muhiimsan ninkan waxa uu iibiyey 1184 okay waxaan raadinaynaa ninka ugu badan alaabtan dropshipping ku sameeyo 50 feet 100 feet waxa doontaa ka dooranaysaa ku leeyahay ninkan maalintii waxa laga yaabaa inuu iibiyo in ka badan alaabaha aanan ii sheeg in ka badan alaabaha inuu iibiyo alaabo fara badan maalintii okay waxaan raadinaynaa ninkan 2000 ka iibiyo 1495 ka iibinayo asaan hadda galaynaa qorshihiis wuxuu u egyahay supply wuxuu u egyahay dropshipper okay waxaan soo baranay Alibaba brand marka lagu sameynayo Amazon marka la keeno sida dropshipping dadka uga sameeyaan inaan ogaano ninkan waxaan aragnaa inuu iibiyey 3 xabo okay 3 xabo goormuu iibiyey 3 pieces oo alaabtan ka iibiyey wuxuu ka soo qaaday Amazon okay Amazon ayuu ka soo qaaday markuu Amazon ka soo qaaday waxa uu keenay 999 wuxuu xagga ku iibiyey 1495 okay oo xagga ku iibiyey 3 xabo ayuu iibiyey ninkan wuxuu faa'iidadiisa maanta ay tahay sidee la muuqato $1 $2 baro ka faa'iiday laakiin si aan taas u ogaano waxaan sameynaynaa waxaan rabnaa inaan gudaha u galno meesha uu ninkan alaabta ka keenay wahagaag let's see waxaan xisaabaynaa 999 iyo 1495 okay faa'iidada uu ninkan ka helayo waxaan idin siin doonaa software kale oo arrimahaas iyada lagu xisaaba wahagaag waxaan tegaynaa eBay fee calculator waa kana eBay fee calculator marka xagga ku dhufato midka ugu hore midka doona ku dhufsanaysa waxaan isticmaalnaa zik ninka la yiraahdo kiisa marka uu noo soo baxo waxaan gelin doonaa price-yadii meesha ay kala galayeen meelihii kale waxaan ogaan doonaa markaas sida ay u shaqeeyaan ayaga okay waxaan ogaan doonaa price-ka iyo intuu ka faa'iidayo ninkan wagaag waxaan aragnaa xaggan inay ku qoran tahay item imsaal la iibinayo 1495 imsaal lagu soo iibiyey 9.99 marka kadib waxay noo sheegaysaa calculatorka marka fiiga labada dhinac la kala jaro eBay fiigeedu waxay ninkan inuu alaabtan ka faa'iidayo $2.73 ninkan arkaysid 3 xabo ayuu iibiyey 3 xabo waxa uu ka faa'iiday I believe ku dhawaad $10 alaabtan asiga gacan kuma hayo laga yaabo inuusan Mareykanka joogin laga yaabo inuu Asia Africa videoyada hore aan ku soo saari jirnay Morocco Nigeria Canada US inuu joogo laakiin midda jirta waxa ah qofka US iyo North America joogo yani ma raadino $2.73 okay $2.73 inaan ka faa'iidno waa inay ahaataa ugu yaraan $3 iyo wixii ka badan okay markaan wax raadinayna laakiin productigan iyada ah
qofkii videowadan hore usoo qaatay ayaa fahmi kara waxaan ku talinay qofka markuu dropshipping sameynayo alaabtu waa inay ka yaraataa $10 alaabtan $10 way ka yar tahay marka uu iibinayana alaabtaas waa inaysan ka badnaanin $19 ama $20 alaabtaane waa ay booskaas waa ay buuxisay annaga waa jecelnahay inaan qaadano laakiin aniga ma supporti gareeyo oo ma caawiyo waxyaabaha Christmaska yacni xoogaa yar shuutada u yeela ama xoogaa yar waxay noqonaysaa waxyaaba aanan fiicnayn oo laga fiican yahay okay بدينيا I don't support waxaas ma support gareeyo so laakiin hadda waxaa noo caddaatay alaabtan inay faa'iido leedahay $2.73 haddii aad maalintii ka iibiso alaabtan iyada keliya dropshipping aad ku sameysho 5 pieces waxa aad ka faa'iidi doontaa lacag ku dhowaad $11 ama $12 bishii haddaa ku dhufato maalin walba bishii 6 waa 70 haddaa ku dhufato 4 isbuuc waxa ay noqonaysaa $280 you need to calculate by yourself xisaabtaas iyada ah okay so waxaa noogu caddaaday alaabta ninkan inuu ii sheegaan soo dropship gareeyo waxaan rabnaa maadaama ninkan inuu yahay dropshipping rabnaa inaan wax badan ka ogaano waxyaabaha lagu gado okay waan isaa gacanta ku dhigta hal dropshipping oo la galaa ilaa aad meel fiican uga soo horto waxaan tegaynaa alaabaha dhan oo asiga iibiyo waxaan rabnaa maalin walba intuu uu iibsho inaan wax ka ogaano waxaan rajaynaynaa videogan inuu noqdo video wax ku oola oo ummadda anfaca sida annagana aan ajir iyo xasanaad uga helno okay waagaag weli waxaa kaloo aragnaa inuu ninkan iibinayo alaab kale oo iyadana laydadka ku saabsan uu wax badan ka iibshay si aan ku ogaanaa wax badan inuu ka iibshay ninkan waxa uu sameeyaa waxa uu tagaa alaab yacni alaabihiisa geesaha ka saaraa si ay dadka indhahooda u qabtaan calaamad guduudan that means it shows you dropshipping marka aragtane almost gone waa nin dropshipping sameynayo waxa uu isticmaalaa software ayuu isticmaalaa automatically I know waa garan karaa so waxaan aragnaa alaabo fara badan 27 inuu iibiyey 102 inuu iibiyey waxaan rabnaa alaab walba maalinta uu iibsho inaan wax ka ogaano annagu aan software isticmaalin waxaa idin barayaa maanta waxyaaba manualka ku saabsan okay waxaa laga yaabaa videogan 1 hour wax la jira inuu gaaro laakiin waxaan jeclaa video toosa yacni in looga faa'iido waxaana jeclaa qof walba saacad iyo barmidii doontaba inuu geliyo insha allah okay marka aad qofka pagekiisa soo gasho xaggan aan soo baxnay waxaan ku dhufanay qofka Green General Store aan ku dhuftay markaan ku dhuftay waxaa noo soo baxay pagekan qofka Green General Store maxaa la dhahaa home pagekiisa noo soo baxay xaggan ay imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay new ayaa ku dhufanaysaa pageka waa soo pop-up garaynaya haddana waxaa kuu soo baxaya waxaa leedahay buy it now waa ku dhufanaysaa marka aad ku dhufato waxaa kuu soo bixi haddana buy it now aan ku dhufanay waxaa kuu soo bixi USA alaabta keliya in lagu iibsho we don't want Mexico Canada waxa lagu iibsho maadaama meesha uu hoyga adduunka ugu weyn oo lacagaha laga sameeyo uu yahay Mareykanka waxaan isku dayan haddana completed item alaabaha ninkan u dhammaaday oo completed u noqday ayaan u baahanaa waagaag ninkan waxaan ku jirnaa pagekii iyo alaabaha uu iibshay laba shay waa marka alaabahan redka ku qoran ended December 31st let me do it waan dib ugu noqday cafwan sorry waxaan rabaa inaan clear ku sameeyo waxaan rabaa inaan dhaho sold items okay alaabaha kaliya uu iibiyay complete and sold items only waxaa noo soo baxay completed markaas kadib waxaan ku sameynaynaa completed kan ka jaraynaa alaabaha uu iibiyay kaliya rabnaa ninkan okay ninkan waxaa noo soo baxay maantadan iyada ah inuu iibshay sold December 1st ayaa ninkan ugu dambeysay uguma dambeynin December 1st waxa uu iibshay alaabtan waxa uu iibiyay $13.99 okay December 6 alaabtan waxa uu iibiyay $21.99 December 16 wuxuu alaabtan iibiyay $7.99 waa waxyaabo yariis ah okay hot items ku soo wada qoray December 21st oo maantadana waxa uu iibshay alaabtan $7.99 ayuu ku soo qoray okay December 1st wuxuu iibshay alaabtan wuxuu ku soo qoray $10.61 December maantadan wuxuu iibsay maantadan wuxuu marayaa 1 2 3 saddex buu maanta iibshay December 21st okay December 2nd wuxuu iibsay alaabtan
December 21 maantana xataa wuxuu iibshay yani alaabtan $6.75. Okay, maantana alaabtan uu iibshay waxay tahay flower gel wrist rest baalko kursiga la saarto. So 5 xabaan ka tirinaya maantadan shalay doraat maalin kale uu iibshay laakiin alaabihii nalka ka baxay ma aragno 14ki 20ga wax badan uu iibshay remote ninkan wax walba uu iibshaa alaabtan iyada ninkan ma hayo wax hal xabo ka hayo mal meeshan uu soo gelgeliyay. Okay, that's how easy you can make money. 20ga waxa uu iibiyay wax ka badan waxyaabo fara badan ayuu iibsaday. Star Price xataa uu iibinaya laga yaabo Walmart inuu oo ka sameynaa dropshipping. So ninkan he's selling a lot waxyaabo fara badan uu iibinaya 20 kali intuu iibsadaa xisaabiyo waa ka badan tahay 20 shalay alaabtu iibiyay. So ninkan alaabahan dhan uu iibinaya marka waxaan rabnaa inaan u noqono waxaan raadinaynaa so ninkan he's selling a lot. Okay, waxaan rabnaa hal shay asiga ka mid ah marka qofka dropshipping sameynaya hesho December 1st uu iibiyo waxaan rabnaa alaabta 21 ku iibshay inaan qabto alaabtan 799 uu iibinayo waa alaab aad u fiican. waxaan rabaa alaabtan inaan ogaado waxaan sameynaya waxaan leeyahay 80 disk wala bala waxay tahaba waa qaadan copy baan leeyahay waxaan la tagayaa Amazon. Okay, I know ninkan inuu Amazon dropshipping ka sameeyo maadaama alaabtan ka soo daba kacnay aan soo raadsanay waxaan leeyahay meesha koran Amazon ku qori haddaan Amazon ka waayna meelo kale aan tegaynaa waxaan leeyahay search. Okay, alaabtan waa inaan helnaa mandatory bingo alaabtii maba la weydiinin waxay noqotay best seller number 1. Okay, alaabtan ninka waxa uu ku soo qaadaa 494. Okay, 494 daily desk calendar refills 494 uu ku soo qaaday alaabtan iyada waxa uu iibiyay 799. Okay, let's go to the maxaa la dhahaa meeshii calculatorka alaabtan waxa uu iibiyay 799 ayuu ku iibshay waxa ku soo qoday 494. Okay, waa inaan ogaanaa waxa faa'iido noogu jira alaabta intaadan bilaabin ka hor. So 494 markoo aan alaabtan 799 uu ku soo qaaday 494 waxa faa'iido ugu jirta $72. Okay, waa easy intuu ka soo qaaday intuu soo geliyay waxa uu faa'iiday $94. imisuu ka iibshay I don't know intuu ka iibshay let's say 1 alaabtan aan ku dhufanayna waxaan rabnaa intuu ka iibshay inaan ogaano markaas kadib waxaan noo cadaanaya price waa soo ogaanay waxaan ku dhufsanaynaa price-kii. Okay, ninkan maalintii waxa uu sameeyay hadday ugu yaraan hadday tahay waxa uu ka iibshay 21 xabo ayuu ninkan alaabtan kaliya ka iibshay 21 waxaa ku dhufanaysaa $78. markaad $78 ku dhufato waxaa ku cadaanaysa ninkan inuu alaabtan ka faa'iido waxa loo yaqaano 30 iyo wax la jira maalintii. Okay, that's how you ku ogaanaysaa dadka dropshippingka sameeya oo ka faa'iida qorshahan ayaga ah way badan yihiin waana dadka dropshippingka sameeya koorsooyinkan iyo waxyaabo la halmaalo oo ka badan iyo softwareada la isticmaalo iyo waxyaabaha dhan kuu sahlaayo walaalayaal 1 hour aan ku jirnaa videogan aan jecelnahay bulshada inaan uga faa'iideyno annagoo aan waxba ka faa'iideynin waana the only thing aan rabno waxa waa aqoonta inay korodho ee bulshada ay wax helaan. Okay, so si ay taas u suurta gasho waxaa hubaala qofka inuu yaqaano waxa uu qabanayo. haddaad taqaano waxa aad baaraysid iyo sidaad wax ku helaysid waxaa habboon inaad waxa hubaala inaad faa'iido doontid. Okay, waxaan rabaa topican asiga ah oo ku saabsan inaan soo gabagabeeyo topican ay dhiman one topic kaliya ay dhiman ku saabsan non brand alaabta sida loo helo non brandka. Okay, topicaas aan rabaa inaan soo gabagabeeyo walaalayaal. waxaa best seller xaggan iga soo baxay waxaan rabaa inaan ogaado shayga ugu muhiimsan ee best sellerka ah. waxaan rabaa best sellerkaas inta ka fiirin inaan ka doorto ama either brand meel ah ama meel kale. Okay, waxaan eegayaa qofka viewgiisa dadka ugu viewga yaraan rabaa inaan qaato. So for that reason waxaan gelayaa xaggan. Okay, meeshaan waxaan dooran doonaa pure and personal care shayga ugu fiican oo socdo pure and personal care ku dhufanaysaa
gudaha markaa usoo gasho waxaan kasii raadinaynaa skin care ama fragrance gift hair makeup bla bla intaas oo isugu jiraan. Here we go. Okay, waxaan ku dhufsanaynaa bahalkan iyada ah waxa uu haystaa 9718 laakiin waa wax aan usual qaabka uu eg yahay yani qofkan China ka keenay ama waa Chinese. waa hagaag alaabtan iyada waxaa noo cad in magac lagu qortay. Okay, waxaan rabnaa inaan sii baarno number of the sellers. alaabtan iyada waxaa saddex seller ayaa iibsata. waxaan waa Jungle Scout JS xaggaa ku aragtaan. Available to view gudaha usii gali karaa bishii ninka intuu lacagta ka sameeyo. categoriga uu ku jiro waxaa waa kitch. Okay, so now ninkan waxaa ii cad alaabtan iyada ah in uu ka sameeyo lacag fara badan brother. 9718 oo alaabtan ka iibiyaa ninkan. waa hagaag waxaan isku dayaa alaabtan inaan kasoo ogaado in China laga keenay in kale. Alright, waxaan leeyahay ninkan magaciisa waxaa la kitch settling waa ka tegaya. waxaan leeyahay headless hair bla bla core whatever intay la egtahay intaanaan ku qoraya core highlight baan leeyahay waa qaadi. waxaan la tegaya Alibaba. Alright, now we have a good lead. waxaan kasoo dhaxelnay Amazon instead of Alibaba aan ka qaadin Amazon tagleen Amazon ayaan kasoo dhaxelnay. Okay, waxaan ku dhufanaynaa xagga kan waxaan leenahay past sidaasaan ka tiri. Okay, waxaan leenahay let's go. gudaha markaan u galno waa alaabtii inaan helnaa iyo alaabtii lamida. Here we go. I mean, this is a great way. hadday baashi isku dhacday waxaan arkaa your log saranaysa ida la leeyahay. laakiin waxaan rabaa alaabtii u eg nooceeda inaan arkaan. wax kale ma celinayn maanta. alaabtii nooc u eg inaan arko. Alright, si aan taas ku dhacdana waa inaan raadiyaa alaabtii alaab u eg. markaas kadib here you go. I love this, I love it. laakiin maanta isku kacay dhacday. so ninka hadda waxaa la leeyahay Kicklyard qof baa iibinaya custom boxka adaa si gooni lagugu sameynaya. custom logo no heat same thing waa laakiin dhibaatada jirta ninkan pricekiisa aad buu u kulul yahay. Okay, mid kale aan sii fiirin haddii kalaasaan kusoo noqonaynaa. waa hagaag waxaan rabnaa alaabtan iyada ah inaan wax ka ogaano. so yaa kaloo iibinaya qofkana way iibinaysaa. waxaa lagu leeyahay 100 pieces $265. how many sawir ka haysaa? hadduu boxka noo maaj gareeyo sawirada dee qofkaan raadinayn waa iyada laakiin boxka ma maaj gareynayo. tanna waa iyada nooceedo kale. waxaan aaminsanahay halka xaba inay iibinayaan $67 maadaama orderkeeda leeyahay 2 piece iyo 100 piece ka dalba kartaa. waa another supplier. waxaan imaanaynaa qofkii haddaan arkaynay 599 lahaa loogada ku qoro. Okay, qofkan ayaa noola muuqda qofka ugu macquulsan. dhicini karta ninkan asiga inuu qofkan kasoo qaatay which is very much why inuu kasoo qaato qofkaas. waa hagaag waxaa noo soo baxday alaabtii iyada ahayd same thing boxka u eka. haddaa Amazon tagnane alaabtan iyo alaabtaas inay isku eg yihiin ay isku muuqdaan same box same thing. Okay, same box same thing. waxay ku kala duwan ilaa abuurto ma jirto. waxa kaliya nooga muuqan alaabtan waa kana kick inta headless waxbuu ku qortay. alaabtii waatan let me see no way waatan alaabtii waxa uu ku qortay magac kaliya u baxsaday. sawir inta kaga dhis before and after xaggana waxay ku leedahay iyadana aan eegno waxa ay tahay siday u muuqato. here you go before and after. laa ilaaha wax meeshaan ka socda arka walaalayaal. sawirkii xagga ku qoran ayaa xaggana ku qoran. Okay, so you need to understand exactly wax meeshaan ka socda. same sawir waxay ku kala duwan ilaa abuurto ma jiraan. Kicklyard before and after. Amazon waxaa ku qoran before and after. magac kit search ku qoran. ninka wuxuu ka soo dhigay asigana intan waxaa ku qoran Kicklyard. Okay, magacaasaa ka bedelaysa xasana ku qoraysaa ama E to Z
حقنا custom box waxaa rabtaa ku qoranaysaa sida ninkan muxuu ku qoray the Satan Headless calling set waxaad dhihi kartaa magaca u bixinaysaa magac islaagun oo kale waxaad dhihi kartaa hadda caddaan keliya inta ku qoran moogtahay sawir noocaana ka saaraysaa ama sawirkaana ka saaraysaa waxaa ka dhigaysaa madow dadka madow waa soo jeedanaysaa ama sawirkii caddaan keliya hadda xooga saaray moogtahay so ama sawir kala saaraysaa so this waxay ku tusinaysaa in ay tahay product brand laga dhigan karo dadka marka Amazon China tegaya raba inay alaab ka soo qaadaan marka ugu horeysa alaabtan waa inay ku samaysaa waxa loo yaqaano research aad brand raadisaa Amazon soo gashaa ama Alibaba markaas kadib aad alaabtan ku furtaa meesha loo yaqaano Jungle Scout okay alaabtan waxay noqonaysaa haddadan Jungle Scout aan ku furaynaa waxaan leenahay alaabtan noo sheeg waxa ay bishii samayso daily sales markaan saxiixo alaabtan ay sheegaysaa so waxaan xagga ka aragnaa ninkan bishii number of sales saddexa iibisa bishii wuxuu iibiyey weli markaan gudaha u galay aan ogaan doonaa maxaa la dhahaa companiga laakiin ninkan inuu alaabtan iibiyo 1598 marka Amazon feegeedii wixii laga jaray ninkan inuu guriga la aadayo ugu yaraan $7 maadaama $2 xaggana uga soo qaado waxa loo yaqaano maadaama uu iibsanayo kun wax ka badan waxa intaana u dhaxaysa lagu leeyahay waxa laga yaabaa inuu ku helo $2.59 okay $2.59 marka supplierka la xiriiraysa waxa la leedahay loogadeed xaq ku soo qor xagga loogada ku soo qor package-kan dhinacan waxa ka dhigtaa black ka dhig sawir kala saaraysa noocyada kala ah dan alaabtan waxa ka dhigtay branded sida ninkan oo kale Amazon soo gelinaysa ninkan waxa nooga sii muuqata weli yani markuu Amazon yani inuu alaabtan asna xayeysiin ku bixinayo and then saa usoo gasho page-ka ugu horeeya okay saad aad uga mid noqoto page-ka ugu horeeya ana dadka soo gala ma garatay marka sida lagu helo alaabtan hadda waxaa noo caddaatay in laga keeno Alibaba isku nooc yihiin magaca kaliya Kindyard alaabtan la yiraahdo magaca laga bedeshay company-gan wuxuu ku ogol yahay in aad magaca ka bedelato wuxuu ku leeyahay custom logo ayaad saaran kartaa logadaada ayaad saaran kartaa custom logada ayaad saaran kartaa alaabtan waxay ku noqonaysaa marka alaab even xataa dadka Soomaaliya Afrika jooga alaabtan way iibin karaan is very good way qofkii YouTube-kan fiirsanayo ka faa'iideysan karaa the only thing aad samaynayso waxay tahay waxa ku dhufanaysaa xagga kan supplier-ka ayaad la xiriiraysaa Amazon marka aad u baahan tahay inaad ii sheeg aad alaab China ka keento waxa u baahan tahay alaab socota oo iibinaysa bishii iibinaysa yani 9718 view haystaa waa 9718 qofooda ninkan alaabtan uga soo jawaabtay ayaa ka soo falcelisay inta aan ka soo falcelin ka waran 1590 hadaa ku dhafta ninkan wuxuu haystaa 100,000 view alaabta laga yaabo inuu shalaatan ku soo iibiyey 15,000 xayeysiin uga baxdo qofkan wuxuu la aadayaa guriga 75,000 wax lamid ah so sida alaabahan brandka lagu ogaado weli waxaan rabaa inaan sii raaciyo maadaama maanta videogan uu dheeraaday waxaan isku dayaynaa inaan laba qayb ka dhigno hadday macquul tahay waxaan rabnaa alaabtan iyada inaan ku bagreyno aan ogaano xataa in lagu iibinayo Shopify iyo meesha loo yaqaano eBay okay waxaan rabnaa inaan koobi dhahno aan tagno eBay okay waxaan isna alaabtan eBay xataa sida hawd uga tahay oo looga iibsho videoga hadduu dheeraado waxaan ka dhigaynaa part 1 iyo part 2 si aad ula socotaan part 1 iyo part 2 laakiin aniga waxaan rabaa aan ii sheegaan balanta aqaanay inaan balanta oofino maadaama ay dad badan ka soo falceliyeen casharada aan bixin oo ay leeyihiin waa lagu khasaarayo waxaas waxaan rabnaa research-ga aad samaynayso inuu yahay dadka aan u sheegno aan talo oo qof aad la tashan aad ku samaysay aad markaas kadib aad adiga soo gashay meesha loo yaqaano Amazon so sidaa laaligeen waxay noqonaysaa mid aad ku khasaarto for sure way adoo bili barar kaliya wax baranayay YouTube ka daawado inaad soo gasho meeshan is very tough way so waxaan soo qaatay highlight-iga inta ka soo qaatay inta ku dhuftay waxaan leeyahay research okay marka alaabta research aan iraahdo waxay geyn doontaa page-ka alaabtan dadka inta qof oo alaabtan iibinaysa dadkaas ayaa waxay noqonaysaa inaan ogaano inta ay ayagana ka faa'iidaan dropshipping ku sameeyaan
is much easier waa qorshe aad u fudud step by step ninkan waa arkaysaa ninkan waxa uu sameeyey waa arkitaan dadkan waxay iibinayaan this is what's going on meeshan ka socda ninkan ugu boxki kalare kale uu ka dhigay is okay ninkan calaamadii search ku qorneed waxbuu saaray ninkan calaamadii uu ka tirtiray okay and everybody way iibinayaan haddaan gudaha usii galno waxaa laga yaabaa inaad ogaataan inta qofood intuu ka iibiyey iyo intuu iska iibin laakiin marka ugu horeysa waxaa noo cad ninkan intaan ka ahayn ninkan inuu 2644 alaabtan iibinaya ninkii hore alaabtan soo qaadan ninka hore alaabtan inuu iibinayo 16 ninkanna uu iibinayo oo eBay ku iibinayo waxa loo yaqaano alaabtan let me see where is it inuu iibinayo 15 inta waxaan kusoo qaadnay 16 sorry ninkii eBayna inuu iibinayo 2644 ninkanna uu iibinayo 2399 hadday aan sii baarno waxaan rabnaa inta aan sii baarin kahor inaan gudaha u galno kan ugu horeeya 26 ka iibinaya aan ogaano you see this is the last one 2499 ninkaan 1762 waa nin yani color kale uu iibinaya laakiin colorkan annaga daba soconaa one watcher qof baa daawanaya kan so you see a lot of people are iibinaya meeshan alaabtan marka waxaan rabnaa inaan ogaano in alaabtan ay socotay in kale so waxaan ku dhufanaynaa qofka ugu horeeya kanaan ku dhufanaynaa waxaan rabnaa inta uu iibshay inaan alaabtan ogaano okay waxaa noo cad xagga ninkan inuu waxba ka iibin alaabtan 3 available bisa waa ka baxaynaa isla markii waqti kuma dhumanayno okay waxaan rabnaa mid ay ku qoranta waxbuu ka iibshay so is it eBay also waxaa laga sameeyaa drop shipping nafsad ahaanteeda TikTok looga sameeyaa nowadays cashiradaas iyadana haddaa u baahantihiin annagoo ka samaynayna waa ku jirnaa ayaa idin siin doonaa waxaan ku xijinaynaa nin kale last one ugu qoranta I know ninkan inuu software isticmaalayo waa ku dhufanaynaa iyadana gudahaan u galaynaa ninkan waxaa noo caddaatay inuu one piece hal xaba ka iibshay okay so waxay ku tusinaysaa inuu hal xaba ka iibshay that means what markuu hal xaba ka iibshay ninkan wuxuu faa'iiday inaan meedinsa wuxuu faa'iiday very much wuxuu faa'iiday another $3 ama $4 okay haddaa u baahantiin waa tusin karnaa inkastoo internetka slow naga noqday too many page aan ku furnay so waxaa noo caddaatay ninkan inuu 1598 ku soo qaaday oo 2399 iibinayo so very much meesha waxaa faa'iido ugu jirta $3 iyo arrimo waxyaabo la halmaala sidaan hore idinku tusinay okay waxay nala muuqataa inaan xabeebsanay sidaan waxba maanta idin tusinaynay laakiin waxaan rabnaa inaan hal mar ku darno eBay ninkan lacagtu ka sameeyey 1598 2399 okay taasaan rabnaa inaan ku darno and then from there waxay noqon doontaa maanta cashirkeen inaan xaggan ku dhamayno ma rabno inaan sii daba kacno haddaa u baahanta imtixaanaan ka dhigi karnaa mar walba si aad arrinkan ayaga uga faa'iidaan okay marka as you can see internet is becoming very very slow we don't know why sababta keenaysa ma naqaano maadaama Alibaba iyo adduun dhan aan isku furnay so wagaag so waxaan rabnaa inaan ku dhufano eBay calculator 2398 2399 iyo 1598 ay xisaabta kala maraysaa 2399 oo ninkan iibinaya iyo 1598 uu ku soo qaaday so waxaan rabnaa profitkin aan ogaano from there ninkan uu Amazon ka soo qaaday oo u diray oo alaabtan eBay ku iibinaya already hal xab uu iibiyey waxaan rabnaa inta uu ka faa'iiday inaan ogaano isla markaasna aan meeshaas ku qaxno faa'iidada waxay ku jirto okay intaan furin eBay markaa wax gelisay automatically waxa lagu leeyahay 0.3 cent ama 0.34 cent oo fee gelina okay so wahagaag let's see wuxuu iibiyey 24.99 so maha it's 23 let me see how be 23.99 sorry 23.99 wuxuu ku soo qaaday 15.98 anaa hubo taas 15.98 what kind of profit is this man ninkan waxa uu faa'iiday $4.64 hal xabo ka iibshay haddii alaabahan laga sii iibsado waxa uu faa'iidi doonaa halka xabo $4.62 okay
walaalayaal this is the great business and drop shipping ka aad buu asna muhiim u yahay laakiin drop shipping iyo Amazon marka aad ku iibinaysid iyo marka aad Alibaba ka soo qaadaysid waa inaad taqaanaa dariiqii iyo sida alaabaha lagu raadiyo kuwa soconaya kuwa aan soconaynin marka intaas hesho waxaa habboon in aad dariiqii loogu talagalay aad raacdo taasoo ah dadka yacni arrimahan ayaga ku xog dheer inaad la soo xiriirto oo mentor aad yeelato ama macallin marka aad mentor iyo macallin yeelato ayaga ayaa ku hagaaya waxyaabaha sida loo raadsado sida loo barto ayaga ayaa kuu sahli doona insha allahu tacaala waxaan rabnaa ugu dambeyn inaan kusoo gabagabayno inaan idin tusino ii sheeg haddaa u baahan tahay inaad la soo xiriirtaan inaad noogu timaadaan waxa loo yaqaano pagekeenna annaga pagekeenna ayaga ah kaasoo ka hadlaya arrimahan ii sheegaan educationka amar walba ka hadla sida wax loogu barto Amazon iyo sida wax loogu barto eBay dropshipping iyo sida wax loogu barto meesha loo yaqaano TikTok iyo arrimaha la halmaala pagekan asiga waxaan uga hadalnaa mar walba arrimaha la halmaala sida Amazon lacag looga sameeyo sida dropshipping lacag loogu sameeyo kulligood waa tix raaci kartaa waxa aan ka hadlayno waa waxyaabaha hadda saan oo kale aan meesha mar walba soo dhigno oo runta taabanaya annagoo research samaynayna sidaa laaligeed haddii aad xiisaynaysaan inaad la soo xiriirtaan fadlan meel walba adduunka joogto markaa pagekeena soo gasho youtube-ka haddaa youtube naga daawanaysa tiktok naga daawanaysa iyadana waxaad samaynaysaa tiktok ayaad bioga tegaysaa sida kanoo kale waxaa ku dhufanaysaa link 3 meeshay ku qoran tahay waxaa ku arki doontaa oo kuu soo bixi sida annaga contacti aad noola samayn lahayd taasoo ku tusinaysa haddaad u baahan tahay inaad youtube naga daawato haddaad u baahan tahay tiktok inaad naga daawato iyo haddaad u baahan tahay balan one inaad qabsato annaga aan toos wada hadalno si aan trainingkan ayaga kugu bilaawno aad hore u socoto balan one aad tusaale ahaan qabsatay waa ku dhufanaysaa marka aad ku dhufato waxaa kuu soo bixi calendarkan soo calendarkan kuu soo baxo maalinta doontaa ka qabsanaysaa macluumaadka ayaad buuxinaysaa markaa macluumaadka buuxiso waxaad arkaysaa waxaan ii sheeg dalabka aad soo dalbatay annaga ayaa kula soo xiriiri doonaa markaas kadib from there waxaan ka wada qaadi doonaa duulaan labadan dhinaca oo taas oo kuu sahli doona insha allahu tacaala in aan labadeennaba nolosheen wax ka bedelno aan isbaranno oo aan aqoon dheeri ah aan isku soo saayidino sababtoo ah cilmigu waa aad iyo aad shay u muhiima maskaxdana waa shay aad iyo aad u muhiima aan la dhumin karin sidaa laaligeed waxaa habboon inaad maskaxda kobciso siduu aqligana u kobco intuu xoogga shaqayn lahaan waxaa habboon in ay maskaxda iyo aqliga shaqeeya waa saadiq wadani iyo asxaabtiisoo idin leh hey maalinta iyo aqliga ha shaqeeyo maalintana idiin wacnaato maalin wacan